السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha sharafta leh qof kamida walaalaha ku xiran janalka ogaalka dunida ayaa naga codsaday inaan u soo tarjuno qasiidada ama gabayga ciwaankiisu yahay laysa al-gharibu ghariba ash-sham wal yaman. qasiidadan ama gabaygan waxa iska leh Zaynul Abidin Ali bin Hussein ibn Ali bin Abi Talib oo ahaa nin kamida taabiciintii. Allah ha u naxariisto dhamaantood. haddaba ku soo dhawaada dhageysi haboon. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن ma ahan qariibku iyo kooytadu midka qariibka iyo kooytada ku ah Sham iyo Yemen. kooytada iyo ninka meesha ku cusub waa ninka ku cusub iilka iyo kafanta. إن الغريب له حقا لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن qofka qariibka ah ama meel ku cusub wuxuu xaq ku leeyahay dadka uu ku cusub yahay oo ah kuwa degan wadamada iyo deegaanka. يتنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن ha canaananin qofka qariibka ah ee meesha ku cusub xilliga uu cusub yahay. zamanka iyo waqtiga ayaa dhulli iyo mixan iyo dhibaatooyin ku canaananaya. سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني safarkaygu waa uu dheer yahay zaadkayguna ima gaarsiin doono awoodaydiina waa ay daciiftay mawdkuna waa uu idalbayaa. ولي بغايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن waxaa ii ahaaday dambiyo baaqi ah oo aanan ogeyn. alle waa uu og yahay waxa qarsoon iyo waxa muuqdaba. ما حلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني allah ilaahay muxuu dulqaad badan yahay markii uu ii sugay aniguna aan ku sii dheeraaday oo aan ku sii adkaaday dambiyadii isaguna wuu i asturayaa. تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن saacadaha ayaa soo maraya maalmahayga aniga oo aan ka shalaayin dambiyadii aan galay oo aanan ooyin oo aanan cabsan oo aanan murgin. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني waa aniga qofka soo xiranaya albaabada oo ku dadaalaya macaasida ilaahay ishiisuna waa ay aragtaa. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بغيت في القلب تحرقني alla maxaa simbirarxo la ii qoray aniga oo moog maxaa dambiyo qalbigayga ka buuxa oo i gubaya. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن iidaa aan u barordiiqay naftaydee oo aan u taanataaneeyay dhammaan dembiyadii aan galay zamanka iyo waqtigana aan ku jaro xasuus iyo murugo. دع عنك عذلي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني iga tag oo idhaaf kan i canaananayow haddaad ogaan lahayd arrintaan ku suganahay ima aadan cudur daarteen. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني iska kaydaa aan shube ilin aan kala go' lahayn laga yaabay inay ka mid tahay ilin i badbaadin karta. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تغلبني waxaad i moodaa aniga oo dadka dhexdooda aala firaash gacmahooduna ay igedgedinayaan. وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني dadkii oo dhan ayaa igu soo dul kulmay mid waa uu ii ooyayaa midna waa uu murugaysan yahay oo aniga ayuu arrimahayga ka sheekaynaya. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني
waxayna la yimaadeen dhakhtar si uu ii daweeyo laakiinse caafimaad maalintaas inuu anfacayo uma arko واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرغ بلا رفق ولا هوان waxaa darnaaday siibidda nafta la soo siibayo mowdkuna nafta ayuu soo jiidayaa wuxuuna ka jiidayaa xidid kasta isaga oo aan ii dhimrinayn oo aan cabsanayn واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني ruuxda ayuu ka soo saaray jirkayga oo idil kadibna wuxuu soo marinayaa qarqarka oo dhuunta ah candhuufteedina waxay noqotay mid aad u qaraar markii uu dhuunteeda nafta ka soo saarayay iyo qarqarada وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شر الكفن way i indha dabooleen dhammaantoodna way tageen markii ay ka quusteen waxayna guda galeen inay soo iibiyaan kafantii laygu doogi lahaa وغام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل ياتني يغسلني waxaa istaagay qofkii dadka iigu jeclaa si degdeg ah isagoo u socda dadka wax dhaqa si uu iigula yimaado qof i dhaqa وقال يا قومنا أبغي غاسلا حذغا حرا أديبا أريبا عارفا فطني markaaba wuu yidhi wardadow waxaan raadinaynaa qof wax dhaqa oo xariif ku ah wax dhaqidda xor ah caqli badan dhugna leh yaqaanana qaabka wax loo dhaqo فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني waxaa ii yimid nin ayaga ka mida waa kuwa wax dhaqee dharkii ayuu iga siibay wuu i qaawiyey keligay ayuuna iga dhigay وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني waxayna igu sagootinayaan alwaax iyo meel la igu dul dhaqo aniga oo dul al halka biyaha shanqarkooda ayaa korkayga ka yeerayay si laygu nadiifiyo وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن biyaha ayaa dushayda lagu shubay saddex dhaqmo ayaa la dhaqay qoomkii ayaana loogu naadiyay war kafanta keena وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطي حين حنطني waxay ii xireen dhar aan lahayn calaamado waa dhar aan jaab iyo gacmo iyo waxba lahayn waa kafanta zaadkaygii wuxuu noqday xanuudkaygii laygu carfin lahaa markii la carfinayay وأخرجوني من الدنيا فواسفا على رحيل بلا زاد يبلغني adduunyada ayay iga saareen alla shallaytadaydee waa safar aan zaad igaarsiin kara aanan haysan وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلف من يشيعني waxaa igu qaaday garbaha afar qof oo ragga ka mid a gadaashaydana waxaa socday dadkii isagootinayay وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني mixraabkii iyo meeshii la igu tukan lahaa ayay ii gudbiyeen waxayna u iisheen oo ay tageen imaamka gadaashiisa kadibna way isagootiyeen صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني waxay igu tukadeen salaad aan rukuuc iyo sujuud lahayn waxaa laga yaabaa Allah inuu igu naxariisto وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلاحدني qabrigayga ayay si degan ii dhigeen mid ayaga ka mid ah ayay soo hormariyeen si uu eelka ii dhigo وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرغني
wajigayga ayuu marada ka qaaday si uu ii eego markaasi ayuu igu maasheeyay oo iga buuxiyay ilinta indhihiisa ka soo baxaysay فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوق وفارغني isagoo meydka ixtiraamaya ayuu istaagay go'aan qaatay oo ooyinta iska yareeyay deetana ciida ayuu dushayda ku simay wuuna iga tagay وقاله عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن markaabuu dadkii kale ku yiri war ciida ku shuba oo ka faa'iideysto oo ka qaniimayst wanaaga iyo thawaabka laga sugayo xagga raxmaanka oo ah allaha manaysiga u saaxiibka ah في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني mugdiga qabriga ma joogto halkaas hooyo mana joogo aabbo ii naxariisanaya mana joogo walaal وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان دهشني waxaa iyaab galiyay suurad aan ku arkay indhahayga markii aan fiirshay muuqaal aad ii wareeriyay oo iga yaabiyay min munkarin wa nakirin ma aqulu lahum qad halani amruhum jiddan faafza'ani waa munkar iyo nakiir oo maxaan ugu jawaabayaa amarkoodu aad ayuu ii yaab galiyay aad ayayna ii argagax galiyeen wa aqaduni wajaddu fi su'alihum ما لي سواك إلهي من يخلصني way ifariisiyeen waxayna guda galeen su'aalahoodii ilaahow iima sugnaan qof i badbaadiya oo aan adiga ahayn فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني ee igu manayso cafintaada yadadiiladaydu waa adiga anigu waxaa la igu xirxiray dunuub oo aan u ahay qof rahan ah تقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني ehelkaygii maalkaygii ayay qaybsadeen kadib markii ay tageen xumaantaydii iyo dembigaygiina dusha ayuu ii saaran yahay oo waa uu culaysanayaa واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته على الأموال والسكن zawjadeydii iyo xaaskaygii nin kale oo bedelkayga ah ayay heshay maalkii iyo deegaankiina isaga ayay u xukuntay وصيرت ولدي عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن ilmahaygiina waxay noqdeen addoomo u adeega labadooda maalkaygiina wuxuu noqday mid xalaal u ah oo aan muddo ku xirnayn فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن war haddaba bini aadanow adduunyadu yaysan ku kadin iyo quruxdeeda oo haddaba fiiri waxa ay ku sameeyday dadkii joogay iyo waddankiiba وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن fiiri qofka adduunyada koobay ee dhammaanteeda soo koobay ma kala tagay waxaan ka ahayn wax lagu carfiyo iyo kafan خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن haddaba adduunyada qanaacadaada ka qaado kuna raali noqo hadduusan kuu ahaanin ilaa raaxada jirkaaga oo kaliya mooye زارع الخير تحصد بعده ثمرا يا زارع الشر موقوف على الوهن qofkii khayr abuurtayow guro gadaashiisa miro qofkii shar abuurtayow dullinimo iyo hoog ayaad ku dul taagan tahay يا نفس كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني naftayday ka joog caasinta kasbo oo shaqayso ficil iyo fal wanaagsan laga yaabee allah inuu ii naxariistee يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن hooggaagay naftayday
ilaahay u toobadkeen oo camal wanaagsan sameey laga yaabee in geerida kadib lagugu abaalmariyo wax wanaagsan. ثم الصلاة على المختار سيدنا